اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة. السلام عليكم asxaabteeda qaali kusoo dhawaada youtube janaalkeena waa markale iyo muuqaal cusub. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa rutiinkii sidoo ahaa. ugu horan digsiga kusoo saare, waxaan kusoo shubay wax yar oo basal ah, kadibna waxaan kusoo daray hilib aan biyo ku karkariyay. kadib inta waxaan ku diyaarinayaa yaanyo shiidan, waa yaanyo toon aan isku daray. intaa kadib waxaan digsiga ku daray shiishiid soo maanan duubin, shiishiid iyo jumbe ayaan ku daray. waxaan rabaa inuu ii gaduuto oo midab qurux badan uu ii yeesho. kadibna waxaan kusoo wada shubay yaanyadii iyo toonta shiidneed. intaas ayaan isku karinayaa intii xoogaa ah. waxaan rabaa baasta yar oo boosiis ah oo isku karisay inaan ka kariyo, in xoogaa ay soo karsamaysay oo aan badnayn. yaanyada markay soo gursatay biyaheeda waxaan ku daray baradho aan si waaweyn u jarjaray. kadibna waan biyeynayaa, waayo baastada marka hore inaad biyeysid waayo hadda isku karabsid. marka hore waan biyeynayaa. dhinaca kale waxaan meeshaan ku haystaa asagana jibsi aan soo jarjaray oo aan cusbo yar kusoo daray. saliid ayaa dabka soo saaray. waxaan rabaa inaan ku shiilo jibsiga hadduu ilaahay yiraahdo. dhinaca kale biyihii way noo soo kareen. hadda waxaan kusoo darayaa baasta makarooni. kadibna wax yar oo cusbo ayaa ku dari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. dhinaca kale jibsigii oo in muddo asana karsamayay diyaar hadda noo yahay. waan ka bixinayaa hadduu ilaahay raali ka noqdo.
ugu dambeyn baastadeena sidaan ayay kusoo baxday. Baastadan waa waxyaabaha ugu fudud oo la kariyo, waqti badan ma qaadanayso, aaday u fudud tahay. Ugu dambeyn sidaan ayay diyaar ku tahay. haddii aad meeshan soo gaartay oo ku mahadsantahay daawashadaada, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. mahadsanid.